سلام كدب مدحوينها iyo dawladda iyo shacabka runtii waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee aad noo sameyseen way cashadani hadda ugu dambayso ilaa maanta oo dhan waan idinka mahadcelinaynaa si walaaltinimo leh ahalnimo leh oo gobonnimo leh ayaad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii dad karaamo leh tihiin waadna karaameyseen allah idin karaameeyo fursad fiican runtii oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa aan haysanaa waxaan nahay dad walaalo ah oo ahal ah oo daris ah oo ay ka dhaxeeyaan wax walba oo bani aadam ka dhaxeeya laga soo bilaabo diinta ilaa afka ilaa midabka ilaa dhaqanka wax inoo kala maran ma jiro dadka beledweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan kara ma jiro oo ayagii marka mar haddaan saan nahay danaheen oo dhan baa isdhex galay danteena isku dhex jirta marka waa inaan kala faa'iideysanaa isu faa'iideysanaa isu gurmanaa isu heelinaa runtii fariinta uu diray garaadku ee uu dadka Soomaaliyeed u diray waxay la tahay inay ku filan tahay meesha ay marayaan iyo wax la gudboon halkan waxaan u nimid oo aniga iyo waftigaygu u nimid dawladda Ethiopia shir baan ka soo qayb galay dawladda federaalka ana waa ka soo wada hadalay laakiin meesha muhiimka ah si rasmi aan isu khusayno halka cadow aan si dhab ah wada leenahay aan dariska nahay aan walaalaha nahay waa dawlad deegaanka Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan goosanay inaan dawlad deegaanka nimaadno si aan si rasmi ah soo kaashano in aan eliminate gareyno aan baabi'ino cadowgaas waana baabi'in karnaa waxaan rajaynayaa annaga ku filan haddaadna taageertaan waxaanan hubaa in aad taageeraysaan madaxweynaha iyo garaadka oo hadlay baan iga filan kol haddaadna taageertaan wixii tabartiina aan ugu taageertaan waxaan idin xaqiijinayaa in dadka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed degan awood u leeyihiin inay cadowga isdhaafiyaan wayna ka go'an tahay idinkana ilaahay idinkiis shartooda idinma soo gaari doonto mar dambe waxaan idinka baranay runtii oo si fiican idinka baranay sida la isu kaashado oo cadowga la iska yaaliyo dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamay sida ay u garab istaageen madaxdoodii iyo dawladdii waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan inay ayaguna raashinkii qaadaan inay burkii dubaan inay sahaydii diyaariyaan inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada Muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo booliburda runtii marka taasa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay waa la idinkaga daysaday annagana insha Allah waa ku guuleysanay dabcan haddana waan ku sii guuleysan doonaa madaxweyne waad mahadsan tahay ilaahay idinkiis waan ballaarinaynaa iskaashigeena midka amni midka ganacsi midka bulsho intaba hadii ilaahay yiraahdo waan ballaarinaynaa